yaasiin maxamuud bucul oo ka mid ahaa baarlamankii dowladdii ku-meel gaadhkeed ee Soomaaliya oo maanta kulan warbaahineed ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa waxa uu ka hadlay muranka siyaasadeed ee ka soo kordhay kursiga senator Cabdi Xaashi Cabdilaahi waxaanu sheegay inuu sharaxan yahay kursigaasi waxaanu fariin u diray ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble iyo madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isagoo ugu baaqay in arrintani ay hoos u eegaan oo ay wax ka qabtaan cabashada ay ka qabaan kursiga senator Cabdi Xaashi Cabdilaahi oo sheegay inuu rabo inuu isla soo sharaxo isagoo ka hadlaya ayaa waxa uu sheegay waxaan ummadda Soomaaliyeed halkan ku cadeynayaa isla markaana maanta uu sheegaya in sidaad ka war haysaan ay magaalada Muqdisho ay ka socoto doorashadii aqalka sare ee gobolada waqooyi isla markaana ay jiraan dad badan oo doonaya inay ka qayb galaan arintaas anigu waxaan ka soo jeedaa gobolka Hargeysa waxaan daneynayay inaan ka mid noqdo senatarada aqalka sare waxaan kursi aan wada leenahay gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdilaahi ay kursi naga dhaxeeya kursiga naga dhaxeeya Cabdi Xaashi Cabdilaahi waxaan u gudbiyay oo aan ka codsaday inaan tartanka kala qayb galo oo aan la mid noqdo tartamayaasha aqalka sare maadaama aan xaqna u leeyahay waxa uu sheegay inaan waqtigan xaadirka ah arintaasi suuragal ahayn inaan arintaasi dhacayn isaguna uu keligii doonay inuu isboqro oo yiraahdo aniga keliya ayaa tartamaya marka waxa weeye su'aasha meesha taala reerkii ma isagoo keliya naga noqday annaga ay soo taagnay ee siyaasiga la ahayn ee dawladda kula soo jirnay intaas oo sanadoodba maanta diyaar baan nahay inaan ka qayb galnay sababta uu naga hor istaagay sababtaasna waxaan u aragnaa awood isbidayo shalay marka aan siyaasadda ku wada jirnay waxaan moodaynay cabashada Cabdi Xaashi oo keli inaan isla u arkaynay inay tahay wax macquul ah laakiin maanta waxa noo cadaatay inuu isagu keligii uu doonayo inuu isagu mar kale isboqro oo aan dadka ehelka la ah ama qaraabada la ah ama tolka la ah ee kursiga la leh aan haba yaraatay waxba u ogolayn waxaan baaq u soo jeedinayaa oo aan halkan ugu cadeynayaa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya maadaama mas'uuliyadda lagu wareejiyay doorashooyinka isla markaana uu ku dhawaaqay in kuraastu ay yihiin kuraas loo madax bannaan yahay kuraas furan oo cid walba oo xaq u leh oo buuxin karta shuruudahaas ay u tartami karaan in arintaasi aanay meesha ka jirin waxaan u sheegaynaa ra'iisul wasaaruhu hadduu Cabdi Xaashi Cabdilaahi garab siinayo oo garab maanta uu ku siinayo in keligii isboqro ama uu cid maanta ilaa waa la ogyahay inuu keligii sacadeeyay oo isagu maanta qof kale oo isagu doono marka inuu yiraahdo aniga mooyaan cid kale ila tartami mayso ciidan doonaan keensanayaana ay timaado oo mar kale oo qof soo codsado ama uu keensado waxaan u sheegaynaa in reerku aan Cabdi Xaashi kaliya ahayn waxaan diyaar u nahay haddaan siyaasinahay oo la yaqaano aan xaq u leenahay in arintaas naloo ogolaado inaan kursiga kula tartanno Cabdi Xaashi Cabdilaahi oo ogolaado ra'iisul wasaaraha oo ogolaado madaxweynaha oo ay ogolaadaan guddiga doorashooyinka maadaama ay kuraasta gobolada dalka ay 2 iyo 3 iyo 4 iyo 5 ay ku tartamayeen waxaan codsanaynaa in loo ogolaado kursigaas oo loo ogolaano kaliya Cabdi Xaashi intiisa la aqbalo haddii taas ay dhacdana ra'iisul wasaaraha waxaan u ogaanaynaa inaanu reer waqooyiga dhexdhexaad ka ahayn wixii uu sheegayay uu lahaa ummadda way sameeyeen arintaas ay been tahay oo ay ku caddahay ogolaashaha kaliya uu ogolaado Cabdi Xaashi Cabdilaahi mar kale waxaan u sheegayaa baaqaan u dirayaa madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaan leeyahay madaxweyne arinta inaad soo farageliso ayaan diyaar u nahay waxaan u sheegaynaa in xaaladdu aanay ahayn wax la taaban karo inay arintu aanay ahayn wax qof iska marorsan karo xeerka sharciga doorashooyinka iyo xeerka dhaqanka intaba kuraas waa kuraas la wada leeyahay reer baa iska leh qof ma leh ehel ma leh dad ma leh waxaan u sheegaynaa in madaxweynaha ka codsanayna inuu soo farageliyo arintaas oo arintaasi ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya isagu culayska ku saaro in kursigaas uu yahay kursi loo tartami karo kursigaas yahay kursi ummadda u dhaxeeya xaqiisana ummadda ay la leedahay oo aanu Cabdi Xaashi keligii aanu lahayn inuu isagu yiraahdo shalay waan cabanayay maantana dadkan ku joogsanaya oo ciidila tartami mayso macquul maaha waxaan markaa ku soo gabagabeynaya warkaygii madaxweyne waa inaad arintaas iyo ra'iisul wasaare waa inaad arinta wax ka qabataan ra'iisul wasaare aday mas'uuliyadda ugu sareysa ku saaran tahay oo doorashooyinkii madaxweynihii maanta ku igmaday waxaan ka rabnaa inaadan noqon nin u adeega dad gaara oo nin u adeega ummadan taariikhda ku xusi doonta biri ka maalina anigu wali wariyaan ahaan jirayo
taariikh waxay igu noqon doontaa abaal dahab ay igu noqon doontaa go'aankan maanta ka gaadho arrinkaas waxaan diyaar u ahay inaan la tartamo Cabdi Xaashi oo laygu daro ayaan diyaar u ahay haddii taasay dhici weydana waxaan u arkaynaa caburin iyo dictatornimo iyo in go'aan uu qof iska leeyahay rabitaan shakhsiyadeed inaad ku shaqaynayso ra'iisul wasaare wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhinaca kale waxaan la hadlayaa ninka la yiraahdo Maxamed Cabdi Xayir Maareeye waxaan u sheegayaa ragga waxyaalaha dhibaatooyinka ugu waaweyn ee nagu sameeyay ay ka mid yahay in Cabdi Xaashi Cabdilaahi kursiga keligii oo samaysto oo isku qoro ragga ku dhiirigeliyana Taiwan ku ognahay waxaan ka warhaynaa Maareeye inaad boqor buur madow xamar u keentay kursigaaga sidii aad mar kale ugu soo noqon lahayd oo aad Mahdi iyo ugu sabtay in arintaas lagaala xaliyo oo boqor buur madow xamar u keentay waxaan leenahay Maareeye arrimaha reerka aad lahayn reerka aan ku qusayn faraha kala bax kuraas aan lahayn ha ka talin baan ku leenahay arintaada ku eekow kursigaaga ana kuguma haysano boqorka aad keentay kuguma haysano xalkaad gaadhay kuma haysano waa inaad afaaraha iyaga ka baxdaa siyaasi Yaasiin Maxamed Bucul oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu ugu baaqay mas'uuliyiinta dowladda federaalka Soomaaliya iyo guddiga doorashooyinka heer maamul goboleed iyo waliba mid dowladeed in kursiga Senator Cabdi Xaashi Cabdilaahi ay kor u hayaan ilaa inta heshiis rasmi ah laga gaadhayo waxaan codsanaynaa in kursiga kor loo hayo inta arintiisa xal laga gaadhayo oo arintaas Cabdi Xaashi ogolaanayo in kursigaas uu furan yahay cid kasta kula tartamayso in kursiga aan la sii dayn ayaan codsanaynaa waxaan kaloo ka codsanayaa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya iyo madaxweynaha Soomaaliya inay arintaas ugu taageeraan oo ay xorriyadda qofka muwaadinka Soomaaliyeed aan xuquuqdiisa aan lagu tuman oo ay arintaasi kor ka hayaan oo kursigaas noqdo kursi kor loo hayo inta arrinkiisa iyo xalkiisa laga gaadha Xamse Jaamac Xuseen